kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan suldaanka TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi waxaana warka idin sheegaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay nooca dawladnimada oo ay mar kale Soomaaliya u raadinayaan. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo amar culus dul dhigay golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay. weli waxaa muran uu ka taagan yahay ciidamo isugu jira Danab iyo Nisa oo xoog kula wareegay madaxtooyada Cadaado sida dadka deegaanku ay sheegeen. Ismaaciil Cumar Geele oo u yeeray xubno ka tirsan Somaliland. Denmark oo gaartay go'aan ka dhan ah Soomaalida ku nool halkaasi. wasiir hore oo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay difaaceeda kusoo koobtay Facebook iyo Twitter. iyo su'aasheena maanta waan idin soo gudbin doono anagoona dib u eegi doona su'aashii shalay aan idin soo gudbinay iyo daawadayaasha fikradooda saliimka kasoo dhiibtay. warkii oo fidsan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay nooca dawladnimada ay mar kale u raadin doonaan Soomaaliya. madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna gudoomiyaha xisbiga UPD ayaa shaaciyay nooca dawladnimada Soomaaliya ay u raadinayaan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladnimada ay raadinayaan ay tahay mid ummadda Soomaaliyeed u horseeda inay ka saarto cabsida iyo walwalka ay qabaan ee dhanka ammaanka. sidoo kale waxa uu sheegay inay raadinayaan mid ka fakarta shacabka Soomaaliyeed oo la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo ka jira gudaha dalka. dawladnimada aan raadinayno ma ahan mid dadka dhibta, ma ahan mid dadka caburisa, ma ahan mid dadka noloshooda ciriiri gelisa. ilaahay idinkiisa waan keenaynaa ayuu hadalkiisa kusoo koobay. waxaan doonaynaa dawladnimo sharaf iyo karaamo iyo xorriyad noo keenta oo cabsida naga yaraysa. waxaan doonaynaa dawlad aan dadka dhibin. waxaan doonaynaa dawladnimo dadka danahooda ka fakarta. waxaan keenaynaa insha Allah ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hayay talada dalka 4 sano waxaana uu ku guuldareystay inuu fuliyo balanqaadyo uu balanqaaday markii ololaha doorashada uu ku jiray. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxa uu shaaciyay in wasiirkii soo qoraa wax aan tabartiisa ahayn uu kula xisaabtami doono muddo 100 maalmood ah. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa digniin u diray golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee dhawaan xilkaasi loo ansixiyay. wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayuu sheegay inuu ka sugayo in sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan waxqabadka 100ka maalin ee soo socda, isagoo sheegay in la iskula xisaabtami doono. wasiirada ayuu uga digay inay soo qortaan waxyaabo aysan qaban karin, maadaama sida uu sheegay loo baahan yahay wasiir walba qorshaha uu soo gudbiyo inuu ku dhaqangeliyo muddo 100 maalmood ah. waxyaabo aadan qaban karin ha ii soo qorin. wasiir walba waxaa laga doonayaa inuu soo qoro waxa uu qaban karo 100 maalin kadib. haddii aad soo qorto wado ayaan dhisayaa, isbitaalo ayaan furayaa oo aadan sameyn, taasi lagama aqbalayo. waxaa ka wanaagsan inaad dhahdo 100 maalin kadib caagan ayaan halkan ka qaadayaa oo halka ayaan geenayaa, laakiin waxaadan awoodin haddii aad soo qorto ogow lagama aqbalayo ayuu hadalkiisa kusoo koobay. waxa uu kula dardaarmay golaha wasiirada inay si dhow u wada shaqeeyaan maadaama howlo badan ay hortaalo maamulkiisa, isagoo shacabka ka codsaday in dhankooda kaalintooda ay qaataan. deegaano badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed waxaa gacanta oo ay ugu jiraan ururka Al-Shabaab. Cornel Shariif Rowo ayaa waxa uu sheegay in wasiirka amniga Soomaaliya uu ku fashilmay xilkaasi ayna haboon tahay in uu iscasilo ama xilka laga qaado. Cornel Shariif Rowo oo ah khabiir dhanka ammaanka ayaa sheegay in mas'uuliyadda qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ay qaadanayso wasaaradda amniga gudaha iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay Cornel Shariif in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado siyaasad amni oo ka duwan mid hadda ay wax ku hagto. sidoo kale Rowo ayaa ugu baaqay wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islaw Ducaale inuu xilkaasi iska casilo, isla markaana warqadiisa ruqsadda u geeyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya. wasiir Ducaale ayaa ka mid ah wasiirada ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya, waxaana dadka qaar ay u arkaan inuu yahay lama taabtaan aan cidna
tallaabo u soo qaadi karin. Si kastaba, Cornel Robo ayaa sheegay in qaraxyadu ay sii badanayaan oo ay joogto noqdeen, sidaa darteedna xubnaha mas'uulka ka ah amniga ay qirtaan fashilkooda oo ay xilka u dhiibaan dad ka shaqo badan isla markaana ka waaya aragsan. Wararka ka imaanaya madaxtooyada maamulka Galmudug ee Cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo isugu jira Danab iyo Nisa ay halkaasi la wareegeen kadib muran aad u xoogan oo ka taagnaa saacadihii ugu dambeeyay halkaasi, kaasi oo u dhaxeeyay maleeshiyaad horey ugu sugnaa madaxtooyada Cadaado iyo ciidankani. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qorshaha ciidamada Nisa iyo Danab qaybta 21aad ay ula wareegeen madaxtooyada magaalada Cadaado. Mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Galmudug kuna sugan Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay ujeedada ka dambeysa in ciidamadaasi ay la wareegaan madaxtooyada magaalada Cadaado. Maxamed Cabdi Aadan oo ah agaasimaha madaxtooyada Galmudug garabka ku sugan magaalada Cadaado ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka dambeyso qorshaha ciidamada ay kula wareegeen ammaanka madaxtooyada. Waxaa nasiib daro ah in ciidamada Danab iyo Nisa ay weerar ku qaadeen xaruntii madaxtooyada, halkaas oo ay joogeen ciidamo daraawiish ah iyo kuwo ilaalin jiray ammaanka. Ciidamada Danab oo gaalkacyo jooga ayaa weerarka soo qaaday. Dowladda waxaa ku nasiib daro ah in ay ku fashilantay amniga Muqdisho inay sii qalqalgeliso amniga maamul goboleedyada. Waxaanu uga digaynaa in ciidamada la wareegay madaxtooyada aysan waxba u dhimin agabka madaxtooyada yeelay, ayuu yiri mas'uulkan u hadlay Galmudug garabka ku sugan Cadaado. Cumar Maxamed Guureeye oo ka mid ah mas'uuliyiinta Galmudug ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa dhankiisa sheegay in ciidamo ay xogtooda hayaan ay la wareegeen madaxtooyada Cadaado. Ciidamo horey u joogay ayaa laga wareejiyay ammaanka madaxtooyada, waxaana lagu wareejiyay ciidamada Nisa qaybta Galmudug. Anaga dooranay in ciidamada Nisa ee Galmudug la wareegaan ammaanka madaxtooyada, ayuu yiri mas'uulkan. Xogaha qaar oo ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaya in ujeedada ciidamada loogu wareejiyay madaxtooyada Cadaado ay tahay gogol xaarka doorasho dhawaan la filayo inay ka dhacdo magaalada Cadaado. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa lagu waramayaa inuu u yeeray xubno ka tirsan Somaliland. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa casuumaad u fidiyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Somaliland, kuwaas oo shalay galab u dhoofay Djibouti. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, waxaana ay kulan la yeelan doonaan madaxda ugu sareysa dalka Djibouti. Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Geele uu kala hadli doono mas'uuliyiintan xisbiga talada haya inay aqbalaan in dib loo bilaabo wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan tagay dalka Djibouti, waxaana uu ka codsaday in uu garwadeen ka noqdo wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. Madaxweynaha Djibouti ayaa lagu yaqaanaa in uu door badan ku yeesho isku soo dhaweynta Soomaaliya iyo weliba dhinacyada kale ee uu khilaafka soo kala dhexgalo. Wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya difaaceeda ay ku soo koobtay Facebook iyo Twitter. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladaha amni ee Muqdisho iyo qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiir Cabdirasaaq oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo markiisii hore uu ballan qaaday in 2 sano gudahood shabaab wadanka uu uga saari doono. Wuxuu sheegay in 2 sano kadib dowladda Soomaaliya ay difaac ka gashay baraha bulshada iyada oo la weerarayo siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda Soomaaliya, taasina ay caqabad ku noqonayso ammaanka dalka sida uu hadalka u dhigay. Isaga oo la hadlayay mid ka mid ah TV-yada gudaha dalka Soomaaliya ayuu sheegay in loo baahan yahay in qorshe ka duwan taasi ay la timaado dowladda madaxweyne Farmaajo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed. 3 ballanqaad ayuu sheegay in madaxweyne Farmaajo inuusan fulinin, wuxuuna ku kala sheegay balamaha in ay ka mid ahaayeen in hantida ku burburtay qaraxyada shacabka laga taageerayo sidii dib loogu soo celin lahaa, in dhaawacyada la dabiibi doono, in Al-Shabaab 2 sano kadib laga saari doono Soomaaliya. Ugu dambeyn waxa uu soo jeediyay in Al-Shabaab wadahadal lala galo haddii ay baajinayso dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee maalin kasta daadanaya. guud ahaanna waa naga intaa warkii caalamka oo aad kala socoteen Suldaanka TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaa warka idiin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Tani intaynu ku kulmi doonno warkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.